runtii mowqifka ahlusunna waljamaaca waxa weeye dadka in lala dagaalamo, waana cidda kaliya ahlusunna waljamaaca qoladaa la dagaalantoo baabi'isay oo haddana deegaamo badan ka xorayday, haddana u taaganoo ummaddii u iftoonaysa in la iska dhiciyo qofkii ku dhinta inuu shahiid yahay, qofkii ayaka dilaana inuu janno ilaahay rasuulkiisa ugu bishaareeyey. waxaa ilaahay rasuulkiisa yidhi duuba liman qatalahum aw qataluuhu, waxaa geedda duuba la yidhaaho jannada ku taalla harsanaya. shajaratu duuba waxaa iska leh qofka kuwaasi ay dilaan ama ayaka dila. marka dilkooda iyo haddii adiga ay ku dilaanba waa laba waxa weeye aad iyo aad guul u ah weeye, waa laba guul. marka kii ku dhintay dilaan guushaas nebigu ugu bishaareeyo helayaa, shajaratu duuba buu helayaa. wax alla wixii dhibaato iyo dembi asagu uu sameeyana waa laga wareejiyey oo qoladii maleegtay waxaasaa la wareegaysa, qoladii u iftootaa la wareegayso u jawaabtay oo diin uga dhigta waxaas. waxaan leenaha marka intii ku geeriyootay waa shuhado, intii ku dhaawacantay waa dhiiggii maalinta qiyaama loo soo celinahayo shahiidnimada markaa qofka calaamo ugu noqonahayay. waa musiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar badan oo u yeelay, laakiin laga naxaya weeye. marka qofkay dhaawaceen iyo qofkay dileenba waxaa u yaala fadligaas faraha badana nebigu u yaboha calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu siinayo, ayaa rasuulkaanu sidaa ku jawaabay. mowqifka marka ahlusunna waljamaaca, culimaaudiinka ahlusunna waljamaaca meel kastay joogaan, waa in lala dagaalamo nimankaa oo waddanka laga zuuliyo, waa in waddanka lagu soo celiyo amni. dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido, nagu horkacdo, oo meel kastoo la joogo nagu horkacdo, ayna u aqoonsato culimmada soomaaliya inay yihiin culimmadaa dadka u danqanaysa oo u dhimanaysa oo u dhaawacmaysa oo dhaqaalahoodii ku bixinaysa inay tahay kuwii ummadda hore u badbaadiyey oo ilaahay sababta uga dhiga 100% waa muslim soomaaliya in la yidhaahdo inay kuwaas yihiin. waa inaysan u aqoonsan kuwa u iftoonahaya in dadka saas loo ifteeyo loo laayo, waa inaysan culmo aqoonsan. taasna dowladdan ugu baaqaynaa. waxaan leenahay annakuna dhammaanteen aan isgarab dhisanno, aan dowladdii ku gacan siino sidii loola dagaalami lahaa. tafaruqa iyo waxyaabahaasoo dhan aan ilaalinno. midnimada looga adkaan karaa ee loogama adkaan karo khilaaf iyo kala tag iyo kala dheeraasho loogama adkaan karo. waxaa looga adkaan karaa in inta la iswaafaqo qofka guriga jooga, qofka magaalada jooga, qof walba meeshuu joogo oo dagaalkooda uu ka muujiyo. waxaan leenahay baaq halkaan uga dirahayaa dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku bixiya arrintaas oo dhaqaalaha siiya shabaab iyo argagixisada. waxaan leenahay walaalayaal ka tooba keena arrintaas, xoolihiinna ha bixinina. waxa aad xoolihiinna ku bixinaysaa waa ummaddiinniyo saas loo dhammaynayo. saqiirada goglan fiiri, gabdhaha goglan fiiri, hooyada uurka lehoo goglan fiiri, dhakhtarka dhintay fiiri oo ummadda halkii ku jiray, ummadda aqoon-yahamiinta fiiri. walaalayaal dhaqaalihiinna ummadda ha ku gubinina, ummadda dhaqaalihiinna ha ku halaajinina. waxaan leenahay dhaqaalihiinna yoysa maalinta qiyaama idinku noqonin naar korkiina lagu dharoobo. ummadda ha ku halaaginina, xoolihiinna ha siinina, dadka noocaasa xoolihiinna ha siinina, ha bixinina xoolihiinna. ku badbaadiya ummadda in kuwaas ay ka badbaadaan, xoolihiinna ku bixiya kaliya. ha ku bixinina in kuwaasi ummadda saas u halaagaan. waxaad ogaataa 1 shilin haddaad siido qofka ummaddaa halaagay ayaad kow ka noqonaysaa, ummaddaas waxa halaagaad kow ka noqonaysaa. ayakana waxaan leenahay walaalayaal ha ku bixinina xoolihiinna ummadda in la halaago. ha gacan siinina nimankaas, 1 shay ha siinina ayaan idin leenahay. meel kastoo joogtaan, ama dibadda jooga ama gudaha jooga, soomaalinimo, muslimnimo, ikhwaannimo qofkay ku jirto oo ilaahay xoolo siiyey waa ku imtixaanayaa. ha ku bixinina xoolihiinna
in ummadda sidaasaa ka dhacda lagu halaago adigoo maqan oo waddanka ka maqan lacagtaad soo dhiibtay in lagu halaago ummadda saas lagu galo waxa waaye oo gurigaagii balaayo kuugu soo hoyato aadanna ogeyn waxa kuu soo hoyday berrina lagaala xisaabtami doono waa balaayo marka balaayadaasna inay ka digtoodaan ganacsatadu walaalaheenna ilaahay xoolaha siiya isa ku bixinin wejka xaaraamta ah taasna waa uga digahayaa waxaan leenahay dhammaanteen oona ku soo khatimahayaa dhammaanteen aan isu kaashanno sidaan shacabkeenna u difaacan lahayn sidaan shacabkeenna u ilaali lahayn sidaan ummaddeenna u badbaadi lahayn sidii waxay dhexdeenna aan isaga dhaafi lahayn sidii gacmaha aan isu qabsan lahayn sidii ummadda aan u horkici lahayn aan isu bahaysanna walaalayaal aan u danqanna shacabkeenna aan ka ilaalino gowraca noocaas oo kaleeta aan ka ilaalino ibaadinta noocaas oo kaleeta waxaan idin leenahay oo idinkugu baaqaynaa midnimo iyo horumar walaaltinimo iyo ayaan isugu baaqaynaa dhammaanteen waxaan idin leenahay shukran lakum وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته